waxaan idinku hambalyaynayaa 4 sano hore inaad si wanaagsan u wada shaqayseen inaad caasimadda wax badan ka bedesheen in mujtamaca Somaliland oo idin qirsan yahay inaad shaqo wanaagsan aqabateen iyo shacbiga Hargeysa golayaasha oo ka mid ahaan jiray golayaashu waa la doortaa waxaanay golayaashu ku wada hadlaan doodana khasab ma dadku isku wada raay noqdo raay oo la isku khilaafaya laakiin khilaafku waa inaanu inala jiidano aanu inoo horseedin wadadii sax ahayd mid ka baxsan oo waxay naga xumayn kartaa Hargeysa waxaa leeyahay waxa u tahay calaamad adkaysiga Somaliland inay duruufaha ka bixi karto bay u tahay runtii tusaale midnimada ayaa dadka ugu adeegi kartaa oo wakiilka ka tihiileeyay doortay waxaan hay odaygii Somaliland wada ka fahmaya waxa saytoo hadii 4 sano hore midnimo ku shaqeeyay khilaafkooda maadin kula sugayay odayaasha على ذيك بهاي هاي مايركا عاصمة عبد الكريم قدومي برلمان بان هاي شريو يسوي دور يلا تنبوه تطبيق تنبوه هذا هو يهاي تقدومي أنا أقول لك سيدي ما وهاي هاو شو دي بانقرنا لكن حلو بهاي هاي السجا حل دارا صار السجي مايركا هين كذا حلو بهاي هاي إن يجوا بدنمك هجاميان والله فكره هو كردوانا شو هي من أياه وقتية كردوان بينه صاق الله دور شوي من صاق الله تياكو صاق بعدين تيانو صاق حي كلا حسبي له كلا ركتب له لكن تاو حلر كيون كلا حسبي نمذا إيه كلا ركتب الله قروح يتمنى له سؤال أن سكر استمر كأولاد لا تستمر والله يا بنا أحبط الله يسوي فيه لكن هذا أنا ما كان لما أتهاوش سؤال أن من دمك كان حشة دور شوين كاس تقول إنه دلوا حين هم بشيران يسا أنا سؤال أن مرة كان لعين مرن إسكو دور يسوليبك سياسة دور كان مشاركة معين بدن بكور هيسان ما أنت عارفين أننا بحرب بحر حكومة ضيده حكومة وده الشيء يحقبض مركز مر والبوح بدون إن من دماغه شعبه قال هان عاصمته ما دام إني أول ما صحوا لي كنت 1/3 شعبي Somaliland ونندق مده هالجيس هنا وضع شغيسان شرعي ويل علينا sharcigana waa ku dhaqmayna marka waxaan soo jeedinayaa maadaama waxoogaa khilaaf jiray kalfadhigiinii caadiga ah baan soo jeedinayaa inaad qabsataan idinka wada jira oo wixii dee horumara iyo wixii isweydiinaysaanba agolihiina isku weydiisaan wixii doodaad ka doodaysaan قولين أنا كنت وضان وحي خلافة صوبحنا أنا أضي النمو يوهي النمو يوهي النمو يوهي تشرك حل الشان صومالو بلغم بي الله ظهر لها قام حق يتشيها هو صبا الله نغضح ميلا خلاف كتير يمتشو لكن مربو حكو حلان تنين دكورو صوب وحوضت كميشة أنت هرنا ودك أمانة يا رنتي بلا خلاف شريسين قفنا وحقول لي أنا وسكور تاجني وحشرعي وفصح يسكور تاجني لكن مروى البحر هين يسا سواء لا نقل كذا من مضى يود الشركة هي خلاف كهوصل ولا معي أيام مروى البحر رئيسا
caasimadda wayna sugaysaa waxaynu doonaynaa caasimadda Hargeysa inay la tartanto caasimadaha gobolka hadday adeeg tahay hadday wado tahay hadday caafimaad tahay hadday waxbarasho tahay runtiina aad bay tartanka way ku jirtaa laakiin wixii tartanka naga cilib dhowraya inaynu iska daynay in soo jeedinaya waan dib bogaadinaya dhammaantiin waxaan leenahay aynu hore eegno aynu mustaqbalka eegno waxaan doonaynaa ictiraafka Somaliland waa ka mid sida caasimadda aynu dhisno iyo sida u ekaato iyo ammaankeeda iyo sida dadku ku soo dhiirado dunidu dadka inala macaamila dowladda doonaan ha noqdaane ra'yiga ugu wanaagsan ee Soomaali laga haysto way naga haystaan meel degan meel nabada meel qofka ajnabiga ama safiir ha noqdo ama wasiir ha noqdo oo socon karo keligii meelaha qaarkood hadduu tago waxa laga yaabaa in taangi lagu ilaaliyo marka waxa la doonayaa wixii kale ee magaaladu ku soconaysay ee caasimad ku noqonaysay ee Addis Ababa kula tartamaysay in Nairobi kula tartamaysay inaad samaysaan baa loo baahan yahay anagu sida uu sheegayo golayaasha deegaanku waa qayb xukuumadda ka mid ah wada shaqayn buuxda baa leeyihiin wasaaradda anaguna maamul dejin baan samaynay dowladaha hoose wasaarad gaar ah baa loo sameeyay xukuumaddu taasi waxay tusaysaa muhiimadda aanu siinayno dowladaha hoose wasaaradda gudahana waa la shaqaynaysaan wada shaqaynta dastuurkaana tilmaamaya qodobka 110 dowladda dhexe iyo dowladaha hoose kaasaa iminka waajibinaya inaan xukuumadda dhexena ay wakiil ku yeelato dowladda hoose oo xogeeyaha dowladda hoose u noqdo waxaan u baahanahay in goluhuna kalfadhigiisii caadiga ha qabsado idinkuna isu timaadaan albaabada hoosta isaga xirataan wixii ka wada hadlaysaan oo ka wada hadli kartaan laakiin waxayna sugaya Hargeysa waxayna sugaya shacbigeedii waxayna eegaya Somaliland inteedii kale marka waxaan rajaynayaa fadhigiina inuu ka soo baxo sidaynu dadka ugu adeegi lahayn iyo qorshihii sanadkaa ku shaqayn lahaydeen haddii alla ilaahay ka soo baxo shirkaas aad iyo aad baa mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته